يا رسولا للمعارف والعلوم، يا أساسا للحضارة كي تدوم، يا رسولا للمعارف والعلوم، يا أساسا للحضارة كي تدوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalyaal kusoo dhawaada barnaamijka Murshid al-Muallim. maanta Murshid al-Muallim waxaan uga hadlaynaa qiso runtii aad iyo aad ii saameysay aan jeclaystay inaan la wadaago muallimiinta meel kasta oo kala joogaan. waa qisada al-Imam Ibn al-Jazari oo ahaa muallim aad iyo aad u saameyn badan oo uga tagay cilmiga Quraanka Kariimka. waa naadir ama way yar tahay qof muslim ah oo wax bartay oo culumta islaamka la xiriirto bartay oonan maanta aqoonin al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah. Imam Ibn al-Jazari wuxuu ahaa muallim isla markaana wuxuu ka tagay ta'liif fara badan. qisada aan u socdase waa qiso uu wariyay Dr. Ayman Suwaid mar uu ka waramayay al-Imam Ibn al-Jazari. Imam Ibn al-Jazari waxaa la sheegay isagoo magaalada Makka al-Mukarrama joogo inuu nin u yimid uu oga sheekeeyay in dhulka Room oo hadda dalka Turkiya ah ay ka jirto baahi badan oo xagga Quraanka ah, ay halka jirto magaalooyinka kamid ah oo la yiraahdo Borsa oo ay joogaan talabatu cilmi Quraanka aad iyo aad u danaynayso. sheekhana warkiisa heshay oo aad iyo aad u danaynayaan inay sheekha la kulmaan iyo inay Quraanka qaataan. hase yeeshee ayna u suuragelaynin inay soo safraan maadaama faqri uu iska jiro oo طلاب cilmi ay iska yihiin, meesha laga imaanayana ay aad iyo aad u fogtahay, sahay fara badan ay u baahan tahay. imaamku markuu arintaa maqlay wuxuu go'aansaday inuu u safro ardaydaas oo uu ugu tago magaalada Borsa oo dalka Turkiga dhacdo. waxaan maqli jirnay waagi hore ar-rihlatu ila talab al-ilm, laakiin midani waa ar-rihlatu ila nashr al-ilm, in macalinku uu u safro inuu dad wax soo baro. waa safar dheer. halka magaalada Makka al-Mukarrama ayuu markaa joogay. wuxuu ka safray Makka, wuxuu u safray dalka Masar ilaa uu ka gaaray magaalada al-Iskandariya. halkaasna maraakiib uu ka sii raacay isagoo tigid wax ka bixinaya ay jirinin iyo safarka lacagta uu ku sii marayo. meeshu u socdana aana mishahar u soconin oo mishahar baa lagu siin markaa aanan islahayn iyo meelaad degtid. hadda waxaa la yiraahdaa deegaan shaqadu ma isiinaysaa, mishahar ma isiinaysaa, maxaa meel ii yaalo, tigidkayga ma leeyahay. inta ay dadku isweydiiyaan. intaba ma uunan haysan al-Imam Ibn al-Jazari rahimahullah. laakiin wuxuu go'aansaday ilaahay dartii inuu ardaydaas la sheegayo ee Quraanka inay bartaan rabo inuu baro oo u tago oo ka soo tago intuu soo saaro si ay diinta u sii nashriyaan ee Quraanka. markuu safarkiisii uu gaaray magaalada Antakiya la yiraahdo, halka waxaa ka dhacday qiso cajiib ah. ardaydii ku sugaysay magaalada Borsa ee la sheegay inay u dhibanaayeen oo sheekha inay arkaan oo cilmiga ka qaataan ay niyada ku hayeen, mid kamid ah ayaa soo hijrooday asagoo soo aaday magaalada Antakiya si uu halkaas oga raadsado dad muslim ah oo ku saacido sidoo ku gaari lahaa al-Imam Ibn al-Jazari iyo sidoo cilmiga Quraanka u soo baran lahaa. ardaygaas waxaa la sheegayaa xitaa inuu go'aansaday wax walba ha ku qaadatee inuu Imam Ibn al-Jazari soo arko, walow ay ku qaadato inuu masaajidka intuu ka istaago uu dadka muslimiinta wax u weydiisto. markuu magaalada Antakiya yimid, ilaahay baa ka aqbali doono rajadii weyneed oo ilaahay uu ku qabay iyo go'aankii uu qaatay. habeenkaas ayaa waxaa ku soo heeday magaalada Antakiya Sheikh al-Imam محمد بن محمد بن محمد بن علي الجزري رحمة الله عليه، إمام القراء ومحقق علم القراءات. markuu ku soo heeday habeenkii ayaa la casuumay. waxaa laga warhelay nin caalim ah inuu magaalada yimid. dadkii beledka ayaa soo dhaweeyay. halka ayaa la isugu yimid. inta markay dhacday ayaa ardaygii asaguna masaajidda magaalada kamid ah ayuu joogaa. marka nin ayaa arkay inuu ninkan yahay nin qariib ah oo uu u baahan yahay in la saacido la soo dhaweeyo. wuxuu ku yiri arday miyaa tahay qariib ah? gurigayga ayaan ku wadaa ina mari. gurigiisa bay sida isku soo raaceen.
gurigiisa markay isku soo raaceen oo uu yimid oo habeenka uu marti geliyay ayay sheekaysteen war halkee u socotay safarkaada bal iga waran wuxuu yiri safarkay wuxuu ku wajahnaa inaan raadiyo al-Imam Ibn al-Jazari nin la igu sheegay Sheikh al-Imam Ibn al-Jazari oo nin caalim fi al-qiraa'at ah ayaan rabaa inaan raadiyo oo cilmigan ka soo barto marka wuxuu ku yiri al-Imam Ibn al-Jazari miyaa raadinaysay ha Ibn al-Jazari ayaa magaaladan caawa joogta u soo hoyday ninkii dhalinyarada ahaa uu rumaysan waayay arintii wuxuu ku yiri ma Imam Ibn al-Jazari baa caawa halkan u soo hoyday ha wallahi laktahalat ayni bi nawmin hatta arahu illa an ka arko wallahi ana caawayto aan hurdo gama ka siinin war sheekhu waa joogay iska seexo sheekhu halkaada iska seexo bari subax baa lagu tusayaa sheekhuna waa jooga meelna kaama cararayo marka wuxuu yiri maya aminkii baa la soo waday oo sheekhu lagu soo raadiyay faqabala ra'sahu wa 'azzamahu sheekhi ayuu marka madaxa ka dhunkaday oo ma aragtay aad iyo aad ugu farxay Imam Ibn al-Jazari halkii uu ka sii kactamay wuxuu aaday magaalada Boorsa oo uu socday halkaas ayuu ardaydii tulaab cilmiga ee isugu timid ma aragtay cilmigan raadinaysay baahida u qabtay ayuu ku baray rag culimo ah ayuuna ka soo saaray Imam Bayazid oo ahaa khaliifadii Uthmaniyiinta ee xilliga joogay dawladda Uthmaniya ayaa wuxuu ka war helay al-Imam Ibn al-Jazari inuu yahay nin caalim ah oo ka soo kactamay halkaas oo arday halka wax ku baro waa karaameeyay wuxuuna siiyay meel uu dego mishaharna waa u qoray Imam Ibn al-Jazari markuu soo dhaqaaqayay mishahar muu soconin ilaahay dartii uu socday inuu quraankan ilaahay dartii uu dadka u baro ayuu ku socday iyo inuu ka tago arday ka xambaarta cilmu naafi'un bari ilaahay subhanahu wa ta'ala hortiisa yawm al-qiyamah ma aragtay uu ku farxo laakiin mishahar muunan haysan gurina muuna haysan deegaanna muuna haysan intiba ilaahay dartii maadaama uu dhaqaaqay ayuu helay qisada marka Imam Ibn al-Jazari rahmatullahi alayhi waxaan ka faa'iideysanaynaa in qofka marka uu ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku karaameeyay inuu noqdo macallin qur'aan inuu aad iyo aad waxa laga rabaa uu ku fakaro inuu arin cadiima ilaahay uu xambaarsiiyay khayriyadii ummadan ayuu ilaahay gacanta u geliyay ummadda waxay ku howlan yihiin shaqooyin kala duwan mid wuxuu ka shaqeeyaa wuxuu qodaa maxaa la yiraahdaa mid albaabadu hagaajiyaa mid suuqu wax ku gadaa mid caanu gadaa mid waa xamaala mid ummadu xukuma midba meel baa loo dhiibay laakiin qofka kan muallim al-Qur'aan ah waxa Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu gacanta u galiyay oo ma aragtay loo soo doortay inuu noqdo muallim al-Qur'aan ninkii macallinka quraanka noqon lahaa ee quraankan ilaahay uu soo dejiyay li is'aad al-bashariyya inuu bashariyada ilaahay uu ku hanuuniyo ninkii sii wadi lahaa marka runtii waa nasiib weyn macallinkan la rabo ee quraanka inuu aad iyo aad ugu fakaro niyadan uu ku hayo khayrukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allamahu hadiyadan ilaahay subhanahu wa ta'ala oo isoo dooray oo shaqooyinka bil aadanku ku mashquulaan wax maarta ilaahay lagu adeeco iyo kuwa lagu caasiyo ilaahay intaba dad baa ku mashquulsan marka intaas oo dhan ilaahay inuu iga soo dooray oo iga soo dhaxbixiyay khalqiga inta la eg oo uu iga dhigay muallim al-Qur'aan ninka quraanka dadka baray runtii waa nasiib aad iyo aad u weyn Imam Ibn al-Jazari rahimahullah markuu ka soo tagay oo ilaahay dartii uu soo dhaqaaqay oo uu asagoonan waxba aanan kale aanan ka dan lahayn inuu dad uu ka tago halka waxaan ka qaadanaynaa inuu qofka macallinka quraanka uu noqdo saaxiib risaala nin risaala xambaarsan inuu noqoto gabadha macallimada quraanka gabar risaala xambaarsan shaqo aan iska dhigo oo ma aragtay aan macna lahayn ayna ahayn aan is ogaado inaan risaalo weyn xambaarsan يا رسولا للمعارف والعلوم يا أساسا للحضارة